يا صاحبتي waad mahadsantihiin inaad kasoo qayb gasheen doodan oo run ahaantii diinteediya waxaan rabaa maanta saan hore nagu sheegay baa dadkan dhegeysanayana in laga hadlo sunnaha xadiidka iyo nebi maxamed calayhi salaam xiriirka saddexdaasba laakiinse waxaan ka bilaabanaa marka hore sunnaha muxuu yahay waxaana ka mid ah doodan inaa af soomaali lagu hadlaayo haddii uu qof af ingiriisi wax ku sheego qofka kale xataa u turjumi kara qur-aanka haddii la daliishanayo in la sheego suuradda lambarkeeda iyo aayaddeeda haddii qof kala garan waayo qof kale ayaa u sixi kara af soomaalina lagu soo gudbiyo qur-aankana lagama baxayo qof walba wuxuu ku heshiiyey meeshan hadda shuruud inuu qur-aanka keliya lagu eekaado laba qof ee ku xadiidyo ayay aaminsan yihiin laakiinse xadiidyadaas xitaa waxay hadda ogolaadeen maadaama qur-aanka aaminsan yihiin in qur-aankaas uun laisla eegayo sunnahan ka bilaawnaa sunnaha wuxuu yahay iyo aan gudageli doonaa waxaan siin doonaa marka hore hal daqiiqadood oo qof walba ku sharaxi doono wuxuu ka aaminsan yahay sunnaha iyo siduu u haysto introductionkii ah kabacdi ayaan dooda u gudageli doonaa bobis baan ka bilaawi doonaa insha allah bar ku hormar adigu hal daqiiqadood waxaad noo sheegtaa sidaad sunnaha u haysatay ya sunnaha anu de kolley waxaan ogahay ilaahay markuu qur-aanka soo dejinayo rasuulada lagu soo dejinayo rasuulada ilaahay uu dooranayo waa dad bashariina oo ilaahay ummadda ka dhex doortay oo annagana tusaalena looga dhigayo inaan ku dayano wax walbaan kaga dayano sidaan diinta u qaadanayno iyaga inaan ku raacno sidii noo soo dejiyeen fariintooda inaan ku qaadano ilaahayna nooga timid aan ku xaqiijino markaas waxaan eegi karnaa iminka suuradda al-axsaab oo kale waa suuradda 33aad aayadda 21aad haddaan eegno soo wada saarta waan idin sugi karaa intaad soo saaranaysiin soo saarta ku socda waqtigu waa ku socdaa anaa markaa ku socdaa bismillaahi raxmaani raxiim marka ilaahay halkan wuxuu nagu leeyahay de af soomaali baan idinku sheegay haddaba kolley af soomaali ilaahay wuxuu nagu leeyahay waxaan idinka dhignay rasuulada tusaale oo qofkii rabay inuu waddada ilaahay ee saxda ah qaatay ee ka cabsanayo maalinta yawmul qiyaamana og si uu ilaahay u xasuusto markaas halkaas lagugu sheegayaa in ilaahay idinka dhigay rasuulada tusaalena ma noqonayso un dee aanu qur-aankan kaga ekaanaya ee waxyaabo badan baa jira oo nebiga lagaga dayanay in tusaale ahaan waanaad kaga dayataa nebigu siduu u tukanayey waanaad kaga dayataa siduu u soomayey waqtigii mu dhamaaday waxaad ku maatintaas waxa way hordhacay waa hadhow gudageli doonaa laakiinse adigu sunnaha waxa weeye waa tusaale waa example aayadna waad usoo daliishatay suuratul asxaab aayadda 21 waxaan ku xigsin doonaa haddana miidka yarka bobis aadan khan istaba wada mara aadan khan hal daqiiqadood sunnaha mawduucan introductionka ama hordhacaaga waxaad rabti kasoo hadda dhisaa doonta u dheh mana maqashaa aadan khan caydiid khan aadan khan caydiid khan haddii aad u helaysiin qof bedela bar soo diyaariya hoos soo qorqoro qof bedela oo hagaagsan oo laisku halayn karo guuleed adigu haddaba hal daqiiqood sunnaha introductionkaaga ku soco bar hadda 2 seconds ama qof iga hormari hal qof iga hormari haye waqtiga saan u qabta hadda xawtaako diyaar ma tahay adigu haye hal daqiiqadood introductionkaaga waxaad ka hormaysay mawduucan sunnahan galayno ku soco hal daqiiqadood تمام horta ugu horreyn waa idin salaamay dhammaan sunnada markay timaado aniga sunnada waxaan aaminsanahay inay tahay jid so jidkaana waxaan ka aaminsanahay inay tahay jidkii rabbi ma garanaysaa siduu ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay sunnat allahi alatii qad qalat min qabl walan tajida lisunnati illahi tabdiila waxayna ku taalaa suurat lfatxi weeyaan aayadda 23 marka aniga waxaan aaminsanahay sunnadu inay taa tahay iyo sunnadii kaleo ilaahay sheegay allatii qad qalat min qabl rusushii kale uu nebigu uga sinaa oo ahayd kutubti kale marka wax intaa dheer oo sunno ah anigu ma qabo maasha allah labaad si baa weli ku haray waxa weeye jid weeye anigu waa isugu saa
super waxaan isku dayaa waqtiga inaan baqti lax waqtiga isaga go'aya hortaniyo aadan khan aydid khan haddii aadsan hadda aadsan hadlin qofkii ugu bedeli lahaa ayaa la raadinayaa fursad bal haysataa weli okay guuleed adigu hadda waqtigaaga hal daqiiqadood introduction-kaaga mawduucan sunne ku socon kartaa hadda ها مين مغشان ha ku socon اوكي هذا مغشان والبوسينا نيهو ان كو waxaan leeyahay maadaama aan baashaan muddo aan ku jiray waxaan fahansanahay inay arrintaana dhanba inay tahay identity politics inay tahay maadaama ay identity politics ay tahay maanta laga bilaabo waxaan ahay sunni qur'aani ah sunni qur'aani marka sunni qur'aani aan idin fahansiinaa sunni qur'aani macnaheedu waxa waaye kaliya qof oo sunninimo ku soo koray ku barbaaray wixii uu ku soo koray kuna barbaaray dib aanan ku qabin laakiinse qur'aanka markuu akhriyay gartay kaliya qur'aanka inuu asaga isfasirayo iskuna filan yahay marka warkiyo kooban saaxiibow aniga sunninimada waxaan dagaal kula jira ma ahan identity-gaas aan iska wada sidano dhib kuma qabo laakiinse qur'aanku asaa isfasiro waa intaasun kaliya sunnuhu waa maxay markaa intaas hadda isagaas fasira hay waqti waaba dhacay waad mahad okay haddaba taatiko ma la maqashaa hawla loo ku maqlaa mawduuca ma la socotaa wax walba fahansantay mise waa lagu sharaxaa dadka lahaa soo qabanin kale waa fahansanaa sunnadii iyo qur-aanka laga hadlaa waxaa lagu doodayaa keliya oo sal laga dhiganayaa bayska waa qur-aanka sunnada kuma jirto ma ku jirto qur-aanka laga duulaya qur-aanka keliya dadka qaarkood waxay leeyihiin xadiidiyada sunniyo waxaas anaku kama soo qaadan wax daliila marka qur-aanka keliya ma ka duuli kartaa may ani xadiiska iyo qur-aanka isku wataa okay marka yalla oran marka la soo qabto qof mawduucan wada fahansan baa loo baahiyay dib ma laha intaan kale qof kale wax soo qabataa yarka ay samawado ugu qoran tahay maanta oo dhan buu lahaa la soo qabto I think mawduuca isaga fahansan samawada gacanta soo taag okay dib ma laha intaan helina qof la hubo oo hagaagsan waxaan ku soconnaa mawduucan nuuro xuseen gacanta soo taag ma fahansan tahayna waxaa hadda qofka inuu fahansanaado way wax walba we don't have time inaan waxaan maanta dhan iskaga lumina waqti in la raadiyo qof doodi kara nuuro xuseen mana maqashaa waa idin maqlayaa fariinteeda maanta oo dhan baa qof soo qorayay iska dhaaf waxa hadda waxaas iska waqti baan ugu socdaa marka mawduuca ma fahansantahay exactly inaan quraan laga hadlayo quraan laga duulayo Soomaali lagu soo duulayo waan fahansanahay dabcan waan fahansanahay stage hadalkaygaan dhamaysto most important waxa weeye in la dhegeysan karaa waqti baad heli doontaa marka mawduucan ma gudagali kartaa ها طبعا اوكي هل دقان وقت كسني حتى waxaan weeye sunna xadiid iyo nabi maxamed alayhi salaam xiriirkooda laga hadli doona sunnahan ka bilaawna hal daqiiqadood oo waqti haysta hadda aad ka hadashii sunnaha ama hordhac aad sameysay sida aad ugu haysatay wuxuu yahay ba ku soo walaal diyaar maana soma ku soo walaal ها آيدي بان تأكيدين يا ويلكو هر وشجعي وحويان أنا رسالة أن الله صاري إلهي سبحانه وتعالى قرآن كنوس ودشيء وكيلنا وحنا وجاها النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمدنا قرآن كوحا وكان جبريل بو إلهي وسودي بي مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحويا وخاتم الأنبياء ونبي وجود بي لصو صاري إلهي سبحانه وتعالى وصو صاري مركا
annaga dadkan hadda ummatu Muhammad haddii aan nahay dadka wax lagu fahansiinayo qur'aanka yacni qof qolada qur'aanka wax fahansiinaysa waa nebi Muhammad calayhi salaatu wasalaam sababtoo ah ma jirin nebi nooga dambeeyey annaga waxa weeye naloo soo diray nebi Muhammadna yacni waa wakiil ilaahay subxaana watacaala ka socda taasina waxay daliil u tahay yacni inuu yahay qur'aanka iyo nebiga sunnadiisa inay iswaafaqsan yihiin dabcan waqtiga iga dhammaaday haddaad waqti kale igu darin okay waad mahadsantahay nuura xuseen hadda waxaan geli doonaa mawduucii markaa sunnahan u guda gelaynaa waxa laga hadlayaa waa sunnaha keliya dooddu waa idiin furmaysaa waad iskabi kartiin hal la isdhegeysto waxaanu ka bilaabanaa markaa sunnaha kitaabka qur-aanka hadda waxaan ka haynaa in la yidhi waxa weeye waa dariiq waa dawey iyo waxa weeye tusaalihii nebiga marka bobsis adiga hadda barka hadal in yar ama su'aal wixii xawtaako iyo guuleedyaku qaabkii u hadlayeen dhankaa ka soo hadal hadda marka adigoo dhankaaga soo gudbinaya ha anu iminka waxaan odhan lahaa de horta waxaan rabaa inaan wax fahmo maanta de nebiga markii naloo soo diray annaga rasuuladeena sala allahu alayhi wasalam tusaale ilaahay nooga dhigay waa inaan qaadanaa maanta iyagina lama joogaan iyagana tusi lahaa waxaan loo baahan yahay laisku haysto iyagaa naga kala sooci lahaa maanta haddayna iyagii joogin siday u tukan jireen iyaga kagama dayin kartid siday u soomi jireen iyaga kagama dayin kartid xadiidkiina markaa taas kuma diidi kartid waayo maanta taasun baan ka haysanaa oo noo sheegaysa sida saxda aynu tukanayno sida saxda aynu soomin waxyaabo badan oo lamid ah marka iyagaana rabi lahaa ilaa qur-aankana way ku qoran tahay waxaan waa loo baahan yahay in la tukado waa loo baahan yahay in la soomo iyagan raba inaan ogaado marka hadday diidan yihiin inay xadiisyada ka qaataan tusaalaha nebiga maxay markaa iyagu daliishanayaan maya hadda waxa weeye xadiid lama gala waxa weeye tusaale weeye adigoo nebiyaasha dhan miyaad tirin mise waa hal nebi keliya tusaalaha sunnaha tusaalayaasha nebiyada dhan maad tirin mise hal nebi tusaalihiisa seed anuu de rasuulka haddan qur-aanka ayaa nebi maxamed baa noo soo dejiyey marka nebi maxamed ayuu ilaahayna annaga tusaale nooga dhigay ummaddii nebi maxamed baan nahay sax wey okay guuladii xaawakiina laba markaa inaan xagga idinkuna haddaad la fikir qabtiin ama haddii aad ka duwantihiin tusaalahaas adaaba ka hadlaya xaawataanku si gaaraba oo la yidhi waa daweygaa laftigiisa markaa ma isku dhacsan tihiin bobsis mise waa si kale ayaad ugu dhigaysaa seed u fahantina anigu waxaan leeyahay waxaa wanaagsan ma garanaysaa in horta la ogaado waa maxay horta nebi waa maxay ahmiyadiisa iyo in naloo soo diro maxaa ay tahay waxa aan kala yani fariinta aan kala gudbayno yani aan kala wareegayno so anigu waxaan noo arkayaa markaan jid leeyahay waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu usoo dhiibay nebi maxamed sala alay wasalam waxay ahayd risaalo usoo dhiibay fariin because isaga intuu iska imaado keligii muuna dhihi karaynin ma garanaysaa nebi baan ahay aydin gaargareeyo cidi kama yeesheen laakiin waxa uu ku socday ee laga qaadanaya ama lagala wareegaya waxay ahayd sidaan wada ognahay qur-aankaas uu ahaa qur-aankaas iyo mucaajistiisa markay arkaan ayay ku qancayeen ay dareemayeen inuu ahaa buug dee aan ahayn kaftan ahayn ma arkaysaa so ani marka waxaan leeyahay jidkan aniga iyo nebi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam aan wada marnaa waxay tahay buuggaas fariinta uu wado siduu ilaahay subxaana watacaala leeyahay aayadda qur-aanka qul inamaa ana basharun mithlukum yuuxaa ilaya annama ilaahukum ilaahun waaxid fastaqiimuu ilayhi wastakfiruuhu waweylun lilmushrikiin iyo aayad kale waxaa jirta ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay nebi maxamedoo ku dheh qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabicanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin u fiirsayaa nebi maxamed buu ilaahay wuxuu leeyahay waxaa ku tiraahdaa dheh waddadan waa jidkaygii sabiili markaan soo qaadanaya aan leeyahay waa waddo sunnada waxaan ka wadaa isla aayadda siday leedahay qul haadihi sabiili tani waa waddadeydii adcuu ila allahi waddadan dadka waxaan ugu yeerayaa inay ilaahay u hogaansanaadaan calaa basiiratin weliba si aragti iyo ku dheehan tahay ma arkaysaa ana waman ittabicanii anigay inta isoo raacdo subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin aniguna kamid ma tirsani dadka mushrikiinta oo beri baan ka ah marka taa waxay ii caddaynaysaa waxa loo wada biyo shubanayaba inay tahay waddada ilaahay iyo jihayntiisa annaga dhanna kitaabkaa naga wada dhexeeya from nebiga to annaga wax intaa dheer oo sunno kale anigu ma arko muku daraa ku dar
aniga haddaan ku dari karo waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo wixii facts ah oo la caddayn karo. marka factiga koowaad waxaa waaye qur'aanka maadaamuu ilaahay soo dejiyey, ilaahay asagaa laga rabaa inuu caddeeyo qur'aankan inay ilaahay ka timid. qofka akhrinayo marka laba maadimidaa ku filan, ama inuu ridiyo qur'aanka oo yidhaahdo hadalkii ilaahay ma noqon karto, sababtuna waa sidaan iyo sidaan iyo sidaan, ama inuu u hoggaansamo. marka qur'aanka dhanba intaasay ku dhisan tahay, ama ridi ama u hoggaansamo. taasaan ka leeyahay. waxaa kuu dhiman xifdinta qur'aankaa kuu dhiman. xifdinta qur'aankana labaan ka leeyahay. kow, ilaahay asaa ballan qaaday inuu micnaha xifdinayo. labo, wuxuu haddana noo sheegay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir, yacni inuu qur'aanka dhanba u samaysan yahay si oo xusideeda ay kuu fududaato. kadibna ilaahay wuuna weydiinayaa xitaa ma idinku jiraa kuwa xifdinaya ama kuwa xusaayo ma idinku jiraa. haddaan Soomaali nahayna anaga marag ayaan ka nahay caruur yaryar oo qur'aankii oo dhanba bartay oo xifdiyey. marka qur'aanka xifdinteeda ayadana taasaan ka leeyahay, ma ahan wax ku xiran hebel iyo hebel iyo hebel, wax ku xiran ma ahan. marka qur'aanka sorry adoo laakiin se sunnaha waxaan hadda sheegayso dhan sunnaha see ugu xiriirsan tahayna haddaan u socdaabo qur'aanka markaan aan iska leexino marka ilaan qur'aankii meeshuu ka yimid iyo xifdinteeda waa ka hadlay. qur'aanka waa taas. waxaa kuu dhiman fikradda sunnada kuu dhiman. fikradda sunnada wax qur'aanka ku jira ma aha. qur'aanka waxaa ku jiro keliya sunnatillaah iyo wa sunnati awwaliin. that's it. sunno kaleeto qur'aanka kama helaysi. sunnatillaah iyo sunnatil awwaliin. marka fikradda ah sunnata nebi xaguu ka yimaadaa? sunna nebi wuxuu ka yimaadaa qolo ayuu ka yimaadaa, qabiil ayuu ka yimaadaa. yacni wax oo la caddayn kara ma aha. waa qabiila dadweynaha kale u keenayo oo oranayo nebiga annaga ayaa micnaha mas-uuliyadda matalaadiisa anagaa micnaha mas-uuliyaddeeda leh. marka annaga ayaan idin oranayno nebiga wuxuu haystay wax la yidhaahdo sunno, annagaa idin oranayno. qofka Soomaaliga oo ogolaadayna waa qof u arkay diinta inay qolo leedahay, waayo sabab uu ku aqbalo ma jiro. halka reason uu ku aqbalay waxaa waaye alla ilahe qur'aankina idinku soo degay, isla idinkii haddaad tiraahdeen wax kalaa jiro macnaha idinla doodi karo. waa qof marka u hoggaansamay dad ayuu u hoggaansamay, ilaahay uma hoggaansamay. inaan idinku dheereeyo ma rabo, marka warkii oo dhanba waxaan idinkugu soo gabagabaynayaa qofka Soomaaliga ah fikradda ah sunna nebi waa fikrad oo uu marti uga yahay qolo, uu marti uga yahay, ma ahan wax uu asaga caddayn karo ama wax uu ilaaha yiri oran karo ma ahan. ku soo hada marka wabillahi tawfiiq. bobsis ama nuuro keebaa rabaa sunnahana ha lagu ekaado. main focus waxa weeyaan khudbadda jeedina sunnahana lagu ekaado. bob bix iyo nuuro kee labadiina ku soconaya? walaalkayna hadal way ku qudbinayaan. anigu horta sunnaha uu sheegayo maba fahansanayba runtii, oo waxyaabo badan baa ka maqan sunnihiisa. iminka sunnaha anigu waxaan u naqaanaa dee nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam sunnihiisii, de in isaga waddadiisii aan raacno. waddadan ilaahay noo soo dhigayna dee dadka uma cadda runtii, oo waddo caadi oo halkaas mar lagu odhanaya maaha, ee waxyaabo lagu tagaa jira jannada oo sunnaha ka dhigaya. taasaa sunnaya. marka taas ma sharaxi karaan maanta qof sharaxayna labadooda midkoodna ma arkin. okay iyo xaawo taako iyada haddii hadalkeeda soo qaado waxay tiri aniga iyo nebi maxamed ba haddii aan khaldanahay sax, aniga iyo nebi maxamed baan ay isku waddaanu marnay, waana waddadaas sunnaha. haddii aan si kale u dhahayna xaawo iga sax, laakiinse haddii sidaa tirina waxay leedahay nebiga laftigiisa ayaa sunnahan isaga oo qur-aankaas ka qaadanayay oon u wada simannahay oon wada raacaynaa. bobix xaawo intaas idinku horta isku si ma u qaadanaysiin bobixo
mise si Ya, ka duwan baad u anu haysataa wadadan la sheegayo de waxaan u aqaanaa waa salaadii baa ku jirta, wadadan la sheegayo soonkii baa ku jira. Marka wadadan ay iyagu sheegayaan bal maxaa ku jira? Wadadu waa wada noocee ay fahansiiyaan? okay xaawo adigu maadaama dhowti si fudud u sheegay bal u sheeg okay waa si wanaagsan haa eeg waxaan rabaa in la isla fahmo moogtahay waxaan ka hadlaynaa wax weyn sunno iyo waxaan ka hadlaynaa kutubka quraanka okay maanta waxaa tusaale yacni dhow uga soo qabanaya oo kale macalin baa buug wada ardaydiisii buu rabaa inuu buuggaas baro laba mid unbaa ka dhalan karta soomaa inuu buuggaas ardaydaas isaga uu u dhigo uu fahansiiyo u sharaxo uu isaga baragti gareeyo si ay uga daydaan laakiin xogtii waxay ku jirtaa iyo informationka isla buugi jabtariskiisii iyo wixii imaa in uu yidhaahdo ardayda inuu farta ka saaro uu yidhaahdo ma aragtaa buuggaas akhrista so ani marka waxaan leeyahay sunnada aan ka hadlayna iyo jidka aan ka hadlayna waxa weeyaan jidkii eebba weeyaan waa jidkan ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay sunnat allah sunnat allahna waxaa lagu helayaa kutubka qur-aanka markaa ku dhaqantid oo tusaale ahaan nebi maxamed dhaqankiisii iyo khuluqiisii wuxuu ahaa qur-aanka uu ahaa nebigu kaana khuluquhu lqur'aan ma aragtaa so aniga iyo nebiga marka waxaan iskaga mid noqonaynaa halkaa buug baan ku wada dhaqannay ma aragtaa buuggaasna dee hal meel buu noo wada jihaynayaa oo hal meel buu nagu wada biirshubayaa markaysaa laakiin marka ay dhahaan nebigu sunno ayuu watay waxay u ekaysiinayaan tusaale qaab ah kutubka wax ka baxsan yaa inuu la imaaday waana waxa keenaya ereyga wamaa ana min almushrikiin markastuu nebiga leeyahay ma arkaysaa wamaa ana min almushrikiin ma ku jiro dadka shirkiyey because informationkii buuggaas wax ka baxsan haddaad la timaadid waxaa kusoo darsatay information aan lagugu talagelin xagga allana ka imaanin ma arkaysaa marka waxay noqonaysaa optional bay noqonaysaa ima in role model kugu noqdo oo u dayatid ima inaad iska daysid laakiin annaga tan aan ka hadlayna risaalada weeyaan iyo fariintaas weeyaan wadada ay ku biirshubanaysa sunnada aan sheegaynana waa midda marka aniga waxaan rabaa inaan weydiiyo ma waxa ay leeyihiin nebi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam sunno waa ognahay waa jid iyo dhaqan qaab qof uu leeyahay qur-aankaas wax ka baxsan buu watay miyay leeyihiin inaan wax isla aragna waay moogtahay because aniga waxaan dhahoyaa sunnada nebiga waxay ka farcamaysay ama ay ka imaanaysay kutubkaas meel ka baxsan nebigu muuna ka hadlay marka waxaan rabaa aniga qofkan dhinaca kale iga soo horjeedo inuu yidhaahdo nebi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam sunnadii u watay ma waxay ahayd wax ka baxsan kutubka qur-aanka hadduu yidhaahdo haa meesha waxaa ka dhalanaya points hadduu yidhaahdo mayane dee hal meel unbaa ku biyo shubanaynaa waxaa la yidhi ood qaadis iyo jiidis waa isla gurigeynti ma garanaysaa oo ma waxay noqonaysaa sheekadii kutubka qur-aanka weeyaan qur-aankani wax ka baxsan male laakiin hadduu leeyahay waxaa jira information dheeraad ah oo sunno ah oo ka baxsan kutubka dee waa inuu noo sheegaa Ya, horta hal wax baad saxday oo waxaad tiri macalinku markuu imtixaana siinayo tusaale uu noo noqdaa waa inuu tusaa sidii aan wixii ku samayn lahayn casharkii waa runta ahaa taasna ilaahayna nebiguu noo soo diray rasuuluu noo soo diray oo tusaalena looga dhigay un ku dayanayno tusaalahaas kama baxsana qur-aanka laakiin adiga waanta qur-aanka haddii lagu keeni lahaa maad aqooteen sidaad u fasirin lahayd maxaasaad nebi lagugu soo diray waxaasaad nebi ugu baahan tahay inaad ku dayatid waxyaabo badan oonad adigu sharixi karayn buu nebigu og yahay markii loo soo diray rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam isagaa ogaa oo markii loo sheegay isagu uu ogaa wixii laga rabay inuu sameeyo maanta adi haddii lagu sheegi lahaa maad ogaan lahayn marka nebigan lagu soo dhiibayana isagaa kaa ogo kaaga cilmi badnaa taas ayaa keenaysa markaas inaad isaga kaga dayatid waxyaabo badan oonad adigu sidaa doontid aanad u fasirin karaynin qur-aanka